الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه وسلم. وقصة انت أن لشينا لا قصان أخريمية وقرق بدن وقصة ديارة إلى رسولكنا عليه الصلاة والسلام إنك يهوديها وحال وريا رسولك عليه الصلاة والسلام أي وحو آدم مكان أدو مكة وكاسو أهوادي وقارت آد وفر بدنتا يشندرها markuu nabigu meeshii tagay oo dhex socda waadigii beer ay aragtay xarka ku xirxiran markii aragtay beeradii rasuulka kaleey salaatu wasalaam way faraxday waxayna ku tii rasuul ilaahayow ninkan yahuudiga ah wuu soo ugaarsaday anigana waxaan rabay inaan baxo caruurteeda soo qoodiyo laakiin saasiye ninkan yahuudiga ayaa soo ugaartay halkaan igu xirxiray ee rasuul ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaad ka fiirata ninkan yahuudiga adiga fasaxda ay soo ugaartay si aan caruurteedu ku laabto soo nuujiyo dibna aan ugu soo laabto xaggeyga nabiga kaleey salaatu wasalaam wuu dhoola cadeyn waliba ku jirta raxmad iyo naxariis wajigiisa ka muuqato wuxuuna ku yiri deeradii bishaarayso waxaan rajaynayaa inaan ku furtaa xargaan ka furfuraa dib damaadan ugu soo laaban waxa yimid ninkii ugaartada ahaa wuxuu arkay rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo ugaartiisa ag jooga ag fadhiistay markaas yahuudiga ku yiri rasuulkii salawaatullaahi wasalaamu calayh maxaa ku ag fadhiisay ugaarteyda wuxuu ugu jawaabay al-mabcuuth rahmatan lil caalamiin suubanihi naxariista badnaa salawaatullaahi wasalaamu calayh asigoo dhoola cadeyn raxmad iyo naxariis ay ka buuxdo wuxuu ku yiri ninkan yahuudiga ah iska sii daa ghazaaladan deeradan wax alaala waxa doonta qaado oo fidi ah ninkii yahuudiga wuxuu ku yiri waxba dooni ma xataa wala kumanaan ka aqbali ma nabiga ku yiri kaleey salaatu wasalaam hadii ay sidaa tahay deeradan waxay leedahay caruur ayaa ii sugan waxaan doonayaa inaan soo nuujiyo dibna aan ugu soo laabto mar labaad oo xaragiisa ugu soo laabto ninkii yahuudiga wuu qoslay qosol waliba ku jirta jaajees iyo siiza markaas wuxuu ku yiri ma waxaad iga dhaadhacsiinaysaa deero fakatay dib ugu soo laabanaysa xargaheedii maladii taqulu hada waxay laga fiirso xabiibkii mustafa sallallahu alayhi ku yiri aniga ayaa ku ballan qaaday soo laabanaysaa ballankiina way oofinaysaa caruurteeda yaryar ayay soo nuujin dib ayaan u soo laaban ee xargaha ka furfuro ninkii yahuudiga wuxuu yiri waxaan u arkaa jeejees wuxuu ka dalbay rasuulka kaleey salaatu wasalaam inuu booskeeda ayaga uu fadhiisto ilaa ay ka soo laabato hadii ay sheegayso ballanteeda oofinayso nabiga naxariista badnaa sallallahu alayhi wasallam ku yiri diyaar ayaan u ahay kugu raacsanahay ee deeradan iska siida xaraga ayuu ka furay yahuudigii waadigii ayay ku carartay si degdeg ah waliba rasuulkana kaleey salaatu wasalaam gacmihiisa shariifka ayuu rihan u dhigay ninkii yahuudiga ah intii ka soo laabanaysa qazaaladii markii u tagtay caruurteedii deeradii si degdeg ku jirtay waliba hilaa ayaa waxay ku tiri qisadii meesha ka dhacday u sheegtay waxay kale ku tiri si degdeg ah ku nuuga maxaa yeelay kafiil ayaa rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam ninkii yahuudiga agtiisa ayuu joogaa makaankeyga ayaa loo haystaa waxaan rabaa degdeg inaan ugu laabtee caruurtii ayaa fiiriyeen ayagoo baahi ka muuqato markaas waxay ku dhaheen hooyadii waxa doonaysaa inaan nuugno aanahaaga rasuulkiisa salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu xiran yahay rahan u yaalo ninka yahuudiga حرم الله لبنك هاي حرام هذا نجا حرام مربها دور رسولك إلهي رحم إياله ويسدي ذين عروتي يرجع ويسول الله وتسدق دجاه ولي رسولك عليه الصلاة والسلام حدث سوء عدي أيضا عنده هذه أي آد وإلمنا يعني مركز رسولك كل محاك وداع فكنت رسول الله وعروتي وحس حرمان عانه إن اللجان مربع ديك هذه الرحم وتعالى عنه هذه ninkii sayidka ugaarta lahaa ayaa istaagay asigoo argagaxsan mucjisada meesha ka dhacda la yaaban asiga dhan murug iyo warar ka muuqdo wuxuu arkay rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo oynayay sharifka badnaa ninkii yahuudiga ku yiri maxaad u oysay beeradii waa tan soo laabatay markaas nabiga ku yiri war ilaahay ka cabso alladii abkaani allah iga oysiyay beeradan caruurteedii waxay iska xarimeen oo baahidooda u diideen maadaama nabiga kaleey salaatu wasalaam rihan u yaaro
ninkii ugaartadaha asna waa ooyey min shiddati almadar. meesha waxaa ka muuqda mucjisada rabbaaniga ilaahiga ah. markaasuu kheeliyey sood weliba kor u qaasan, waan sii daayay, waan xoreeyay yaa rasuul allah. kadib wuxuu qiray towxiidkii oo yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. markaasaa xargihii ka furfuray khasaaladii, islaamnimadiina u galay, islaamnimadiisana way wanaagsanaatay, wuxuuna ka mid noqday wa kaana min asaalixiina almuqaribiin. walaalayaal, hal mar aynu ku wada sallino nabigeena salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. arrinkaa iyo mucjisada ilaahay subxaanahu watacaala ku xoojiyey sala allahu calayhi wasalam wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.